بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، qaybtii noogu dambeysay waxaan ka soo hadalnay qadiyada alwalaa walbaraa, halka ay ka joogto caqiidada islaamka, annagoo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wassalaam ku soconna. waxaa noo caddaatay haddii aan la helin walaa iyo walbaraa oo ah weli ka dhigasho iyo ka beri noqosho, qofka muslimka ahi uu alle iyo rasuulkiisii muuminiintana weli ka dhigto, gaalada iyo munaafiqiinta iyo mushrikiintana uu ka beri noqdo, haddaan la helin inaan qofkaa caqiidadiisu hagaagayn. aayadaha qur-aankaabayna ku caddayd inaan iimaan la helaynin. sida keliya iimaanku ku ansixi karaa ay tahay in ciddii ilaahay ugu talagalayna weli laga dhigto, ciddii ilaahay ugu talagalay in beri laga noqdona beri laga noqdo. arrintaa maadaamay noo soo caddaatay sida ay caqiidada ugu xiran tahay ama caqiidadu la-aanteed inayna soconaynin, ayaan waxaan halkan ka gelaynaa qodob saddexaad oo ah yaa weli laga dhiganhayaa. fahamnay inay alwalaa walbaraa caqiidada inuu meel weyn kaga jiro, oo qur-aankii baan ku aragnay, axaadiistii nabigaan ku aragnay, culummada aqwaasheedii baan ku aragnay. halkan marka waxaan rabnaa inaan u gudubno yuu qofka muslimka ahi weli ka dhiganhaya. arrintaas marka waxaa weeye jawaabteeda meel kale oo loo doonahayaa ma jirtay, qur-aanka kariimka ah loola noqon hayaa. si guud marka waxaan leenahay qofka mu'minka ahi wuxuu weli ka dhiganhayaa allah subxaanahu wa tacaala, wuxuu weli ka dhiganhayaa rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam, wuxuu weli ka dhiganhayaa mu'miniinta. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun, oo ah inamaa in kale maahane waliyukum allahu, weliguuna waa alle, iyo warasuuluhu rasuulkiisa weeye, iyo waaladiina aamanuu kuwii alle iyo rasuulkiisa iyo maalinta qiyaamo rumeeyey ayaa weli idiin, cid kaloo weli idiin ihi ma jirto. mu'miniinta loogama harin mu'miniina waxaa lili aladiina yuqiimuuna asalaata, kuwa salaada oogahaya, wayu'tuuna azakaata wahum raakicuuna, ayagoo rukuucsan. meeshaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddaynhayaa cidda qofka mu'minka weliga u ahi, oo intaa ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala: allah, rasuulkiisa iyo mu'miniinta. qolo kasta ama qeyb kasta oo meeshaa lagu xusay sida weli uu qofku uga dhigan hayo dul istaag bay u baahan tahay. ma noqonayso keliya qofku inuu yidhaaho qalbigaa wax iiga buuxaan oo allaan jecelaho, rasuulkiisaan jecelaho, mu'miniintaan jecelaha, taasi ku bixin mayso. waxaa weeye mid waliba waxay leedahay dhaqan iyo arrimo la rabo qofka inay ka muuqdaan inay arrimahaasu dhab ka yihiin. haddii aan soo qaadno midda ilaahay subxaanahu wa tacaala, inaad rumayso waxdaaniyadiisa, alle subxaanahu wa tacaala inaad jeclaato, inaad shareecadiisa raacdo, inaad xalaashiisa xalaalaysato, inaad wuxuu xarimay xaaraamaysato, inaad wuxuu fool xumeeyey fool xumaysato, inuu wuxuu qurxiyey ay kuu quruxsanaadaan ayaa loo baahan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa markaad noloshaada ku dhaqanto, in aada diintaa dadka ku fidisaa loo baahan yahay. adigiyo dadkaa diinta fidinhaya inaad diintii sidii ay arladan u xukumi lahayd oo arladan ugu noolaan lahayd inaad ka shaqaysaa loo baahan yahay. waxaasoo dhan weeye waxa walaaga uu tilmaamahay. sida dadka qaarkood u qaateen ma aha arrimo qalbiga isaga jiro oo aan noloshaba qeyb ku lahayn maaha. rasuulkiisa jacaylka aad jeclaanaysa iyo welinimadaad ka dhiganaysaa waa inaad sunnadiisa raacdo calayhi salaatu wassalaam, oo dhaqankiisii aada yeelato, oo waxaa weeye aada siduu adduunyadan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ugu matalay inaad adiguna sidoo kale ugu matasho inta awooddaadu ay la eg tahay. mu'miniinta waxaa weeye waa inaad mu'miniinta jeclaato, waa inaad soo dhoweysato, waa inaad garabsato,
waa inaad u gargaarto waa inay kaaga sokeeyaan cid walba oo cid walba ka jeceshahay oo waxaa weeye dhibkoodu dhibkaaga yahay dheeftoodu dheeftaada tahay xanuunkooda la xanuunsato faraxooda la faraxdo waxaa weeye dad sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noogu tilmaamay kamathali ljasadi alwaaxid sidii hal jir qofka bini aadanka jirkiisu ma kala haro waxaa weeye xanuunka iyo caafimaadka faraxa iyo murugta waa u wada siman yahay marka qadiyadan marka la leeyahay allah iyo rasuulkiisa mu'miniinta weli kuu ah ma aha mas'alo iska sahlan oo qofku siduu rabo uu ka yeeli kara maaha ee waxa weeye waa shareecadii islaamka dhammaanteed baa loola noqon hayaa qofka noloshiisii oo dhan baa looga baahan yahay sidaasuu marka ilaahay u leeyahay inamaa waliyukum allahu warasuuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آيات كلا إلهي سبحانه وتعالى وحكوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قفك الله يرسول كيسة يا مؤمنين تولي كدكت انتاس إلهي وحكوت المامي فإن حزب الله هم الغالبون إلهي حزب كيسة وكوا قوليسن هيا وقعنت صار له معنى هذا مركب محيطها قفكي ولا يدي سميل كلا آذى حزب إلهي وكبحي قفكون هدو حزب إلهي كبحه دوحوا قالها هو حزب الشيطان وي حزب الطاغوت بو قالها يا ساد رادد مركب آيات وعدينيسا يان ولي كدغانينا وآيات دي هراكله الله ورسوله والمؤمنون أيان ولي كدغانينا آيات كلا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه الله ولي الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى وكوا مؤمنين تاولي قوذوي يخرجهم من الظلمات إلى النور وحكسوا صاره يا مقدياشة واترب دينهين مقدياشة عقيدة مقدياشة دغنك مقدياشة أخلاق ذا وحسوا رب إلهي سبحانه وتعالى كسوا صاره يا وحنا أصاره إلى النور نور كنا وهلمد وشريعة إسلامك ودينة إسلامك وتوحيدك إلهي سبحانه وتعالى لنعك لإلهي وحوله والذين كفروا كوي قالوا بي أولياؤهم الطاغوت وحولقوا هو طاغوت وي يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قلذي طاغوت ولك لقتانا ذا النور كواكتغهيان توصنانت واكتغهيان أخلاق ذا وناكسن واكتغهيان لقن كوناكسن واكتغهيان waxay u baxayaan waa dulumaad way mugdiyo iskoraan koray oo midba midka kale uu ku dhiibay u baxayaan kuwaasina waa ahlu naar bu ilaahay leeyahay waliba ayagoo naarta ku waarahay marka aayadu waxay tilmaamaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala uu laga dhigto wali oo qofka mu'minka uu ilaahay subhanahu wa ta'ala wali ka dhigto aayad kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin nabiga calayhi salaatu wassalaam ayadoo ilaahay uu ku halqabsanhayo ayaa wuxuu leeyahay inna waliya allahu aniga weligaygu waa alle allihii soo dejiyey kitaabkan qur-aanka asagaana ah midka tawaliya saalixiinta oo macnaha mu'miniinta weligooda ah marka aayadaha qur-aanku kulligood waxay adkaynhayaan oo dhinac walba ay naga tusahayaan qofka mu'minka walaayadiisa cidda iskale inay tahay allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta inay tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu leeyahay والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمنين iyo mu'minaadku qaarkood qaarka kale wali u yihiin يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هوشي قبان هيان oo ay waliga isugu yihiin oo macnaheedu ay tahay mu'miniintu waa dad isku xiran oo waxa weeye tala ka dhaxayso oo gargaar ka dhaxeeyo hawshooduna ay tahay ya'muruna bil ma'ruf waxay farahayaan wixii wanaagsana wayanhawna 'anil munkar xumaantiina way reebayaan wayuqiimuna as-salata salaadana way oogayaan wayu'tuna az-zakata zakadana way bixinayaan wayuti'una Allah wa rasulahu alla iyo rasuulkiisa ateecayaan oo macnaheedu ay tahay iimaan khali ah oo meel cidla ka laalaada maahe waa iimaan hawshaas tirada badan oo ah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar
iqaamatu asalaa, iitaau zakaa iyo taacada alle iyo rasuulkiisa waxaa weeye ku dhisan weeye. sidaa daraaddeed waxaan fahmaynaa marka la leeyahay alwalaa walbaraa caqiidada meel wanaagsan, meel weyn buu kaga jiraa. macnaheedu waxa weeye cidda weliga laga dhigan hayaana qur-aanku ugama tegin meel cidlaa iyo albaab iska furan, ee waxa weeye way xadidan tahay, wayna koobantaho intii ilaahay ku koobay subxaanahu watacaala cidi kama badin karto. meel ay ka soo gashana ma leh. waxaa weeye allah wa rasuuluhu walilmu'miniin, iyo markaa diintii islaamkiiyo nusradeedii iyo wax alla wixii diintaa ku xiran ayaa qofka laga rabaa inuu weli ka dhigto. sidii horay aan mawduuca bilowgiisa ugu sheegnayna, welinimadaani waa jacayl, waxaa weeye maarata yani waa dhawaasho, waxaa weeye maarata yani waa gargaar, waxaa weeye waa isgarabsi. intaasoo dhan hiiliho ayay u baahan tahay. qofka marka yani ilaahay subxaanahu watacaala gargaarkiisu waxaa weeye waa diintiisood raacdo, waa diintiisood u jihaado, waa diintiisood xaqiijinteeda ka shaqayso. gargaarka rasuulka calayhi salaatu wassalaam waa sunnadiisiood raacdo calayhi salaatu wassalaam, ood noolayso. maantay oo ah waqti ay sunnadii nabigu duugantay, inaad noolayso way gargaarkiisu. waa inaad dariiqii uu ilaahay la soo diray ee adduunkan uu u yimid uu xaqiijiyey, waa inaad xaqiijiso weeye ood u noolaato. mu'miniintuna de waa sidaas ilaahay noogu sheegay inay dadka mu'miniinta ahay walaala yihiin, dad isu damqada yihiin, dad istabahaya ay yihiin, dad waxaa weeye maarata yani jasadkaa waaxidkaa ah weeye. marka sidaasaa waxaa loo baahan yahay qofka mu'minka inay wilaayadiisu noqoto mid intaa ilaahay uu u xadiday ku xiran. qaybta kalena noogu imaan doontaa waxaa laga beriga noqon hayo. wabilaahi towfiiq.